su-aashiisa kale waxay qof go-aan ku qaatay xumaanta inuu iska daayo ku noqday xal la gudban de waxa la gudban inuu iska daayo culimadiis ma aragnaa anu wax gacanta wax ka dhiibayo ma arag dad baa ninkan hadalkiisa waxay moodayaan ciyaar $30 baad salaada ku rabtay. السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم كوحك ليه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا روحي بهنونيو مباهنونسن shalay markii uu faafiyay ama uu shaaciyay ninka loo yaqaano Maxamed Saciid BK inuu fankii ku soo laabtay waxa jiray dad fara badan ama commenta ku qoraan ama muuqaalaha soo duubaane oo lahaa war adiga Ilaahay waxaad kala leedihiin baad leedahay ay mutara uu sokeeyo Saciid TikTok wax ka waaniya isagana waanu u diray dhowr mar BK waani waxa uu sheegay in BK wadadan uu ku socdo ee tahay wada qaldan bulshadana la nool reer Soomaaliland qof walaaliyo qofkiiga hor yimaadaba wuxuu oranayaa BK fankii ku soo noqo culimada Soomaaliyeed meel kasta joogta ama Soomaaliland ba maxaa loo waayo qof ku dhiirigeliya dadka khayrka oo qofku markuu meel ka khilaaf ka soo baxo ama fanaan ka soo baxo la baritaaro oo la guuleeyo oo dhaqaalaha laga dhiso oo hamigiisa loo rumeeyo maxaa loo waayo imika qof 70% bulshadu qofkiiga hor yimaado wax ku leeyahay war BK soo noqo fankii baan noo xiisnay heesii bay qaadayaan marka waxaan culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Soomaaliland ba ka codsanaya inay khayrka igu dhiirigeliyaan oo khayrku waa wax fiican oo ila iga warhayaan kaasi waa qodob waxaan u mahadnaqayaa bulshooyintan reer Soomaaliland meel kasta aan istaagaba way yimaadaan wadada aad u karaamo badan waxa ugu dambeysay maalintii dawladda waqtiyan nasiibka yeedinayni waxa yimi 5,000 oo qof waliba $50 sito waad garanaysaan xisaabtaas intay tahay $250 weeye Cabdiqani Soddon buu ku celiyay bulshada 220 marka waan la kaftamay saaxiibkii waxaan ku yiri war saaxiib labadana qaado anigu waxba kaama rabe 20 kana shaqaalaha si marka aad baan idinku mahadnaqayaa bulshooyinka reer Soomaaliland saa ay karaamaysan meel kastaan joogo waa sharaftaan Allah idin sharfo waxaan garanayaa waqtiyadii hore oo dhan saa ay karaameyn jirteen walba ay karaamaysan anna qarankan iyo ciidan iyo calankan buu jeclay waxaan leeyahay noolaada culimadiis ma aragnaa anu wax gacanta wax ka dhiibayo ma arag dad baa ninkan hadalkiisa waxay moodayaan ciyaar $30 baad salaada ku rabtay waryaadhe horta Maxamed BK markii hore salaada meel xun buu ka xidhay anu rumaan idin sheegaya waxa la yiri culumada darmaan gaaban ayaa maaga waligoode dadka inay u mudan yihiin Allah i marxaatiye ee mar hadayste manfaca raadis iyo malabsi deen weydo ama maankan laga qaado oy madaxda hoos yaacdo musxafkay ku taala halku mawlahay dhigay war marka ma fahamteen wadaadada Cabdihani iyo Sheekh Xabiib yani jamaacad tabliiq bay ku xidheen oo ilaa ikhlaaskii lillaahiyada la bar ninkan wuxuu ku xidhay qolyaha Sacuudiga aad inta u dhaafi maayo marka timirtii bay wax ka siin waayeen Saudaniba ana hawlahaga ku laabata ma yahay maadaama lillaahi da waxa ilaahay dartii looga jeedo baa jiraya السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم كوحك ليه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا روحي بهنونيو مباهنونسن روحي سيب أولميو بادييو وهلي ميسيد غارغاري هنونيو قفكو الله سبحانه وتعالى هنون لدونا أيا هنون سما كل لدوننا ما هنون سما مركا ولكن أحمد BK سكست دي وحلا وشيء هدوسن ربي سبحانه وتعالى هنون لدون حبا دتك هالكود دق مايو هدوسن ربي هنون لدوني إن شاء الله إلهي وكو أنفع دونا وأنا داسي لكن وحيدين شيء يا قفكو وحن أسمينا يا هدوسن إلهي درتي أسمينين وأنا لقى شيء ونأي تهي حبا ترميسو وحيلا نينكي 5 سنة كهر وحن كبحي فناني مدن لها عذابان ku jirnay dulli baan ku jirnay kan ikuusta ku hayay maanta hadana waan ku soo laabani hadana la leeyahay ka joog kulay
hanuunka xaggi ee ilaahay baa og laakiin waxay u muuqataa in waxani aysan dhabka ahayn marka horeba oo un shaqo un meel ka helay dabcan shuruud miyaa looga dhigay ma garan karo qofka haddii waxan ay ka soo goodo uu ilaahay dartii ooga tago boqol gaajo war kuwan gaalada soo islaamay waa aragteen diinta markay soo galaan intaasoo dhibaato iyo rafaad iyo silic bay ka maraan kamana laabtaan islaamnimada way waxan ay ka go'an tahay waa hanuun rabbi weeye marka Axmed BK waxaan ku leenahay walaalow mar labaad ku soo dhawaaw ma aragtay leenkan culimada marka ilaahay anaga dhahna wada hanuuniyo laakiin Axmed BK waxay u muuqataa waxaan in lagu qasbayo meeshaan in lagu qasbayo ogta culimooyinkan haddaysan waxaan asaga naftiisaba aysan ka raali ahayn oo waxaan inuu ka tagaba uusan rabin ku qasbina dambi si weynaa dambi kasi hadda waagii hore wuxuu iska nin caamay alla ma yaabeen laakiin maanta haddii uu ku laabto xushara ka soo tagay maanta ka dambi badnaana marka ilaahay dambigeena wada dhaaf salaam alaykum shalay markii uu faafiyey ama uu shaaciyay ninka loo yaqaano Maxamed Saciid BK inuu fankii ku soo laabtay waxa jiray dad fara badan ama commenta ku qoraan ama muuqaalaha soo duubaane oo lahaa war adiga ilaahay waxaad kala leedihiin baad leedahay ku soo dhoofanka oo soo gal dadkaas aan rabaa inaan xasuusiyo hal xadiid oo nabigeena kaleey sallallahu ka sugnaaday su'aalan ku soo khatay muuqaalka rasuulku kaleey sallallahu waxa uu noo sheegay uu waxay man doontaa dad ku baaqa albaabada naarta taagan oo naarta dadka ugu baaqaya kuwaasi oo haddii markaa aad ajiibto naarta kugu tuuraya waliba rasuulku kaleey sallallahu wuxuu noo soo raaciyay oo yiri dadkaasi jirkiina weeyi oo idinka kamid yihiin arabkiina ay ku hadlayaan marka imika su'aashaan weydiinay waxa ay tahay dadkiinan caanka ah ee dadka xumaanta ugu baaqayo ma albaabadii kuwa naarta taagnaaba tiin dadka kulaha ku soo dhawaada naarta naar soo gala adiga ilaahay waxaad kala leedihiin baad leedahay naar baad dadka ugu baaqasaan xumaan baad ku dhiirigelinaysan waxaad aan u tihiin inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ka fogeysaan mise aan waxaad u tihiin inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka soo dhaweysaan bal ee muuqaaladiina marka la eego iyo commentiyada aad qoraysaan waxaad aan u tihiin inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ka fogeynaysaan muuqaaladaas oo kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala laga magan karo waxaana wax ciqaab ilaahay lagu mutaysan karo waa ilaahay ka baqa dadkan dadka ku soo dhaweynay xumaanta sheegaya ilaahay ka baqa arada ilaahayna iska ilaaliya nin xumaan gidi waan shaaciyay oo xumaan ba faraha la soo gelaya inaad adiguna tiraahdo xumaantii ku soo dhawow waxaad ka mid tahay qof xumaantii la sameynaya bal ay ka daran oo dadkii ugu baaqeen inaad xumaantii wax weey la dhex gasho ilaahay subxaanahu wa ta'aala laga baqo dadkan xumaantii aan loogu baaqin dadkan caanka ee wax walba iska soo duubaya kaftanka moodayowna waxyaaba qaar aan lagu kaftin ba jirtay ka digtoonaada su-aashiisa kale waxay qof go'aan ku qaatay xumaanta inuu iska daayo ku noqday xal la gudban waxa la gudban inuu iska daayo oo tawbada shuruudeeda uu buuxiyo shuruudda tawbadu waxa weeye shay macsiyo ah ama dambi ah markaad ka toobad keenayso inaad gacanta ka qaado waa inaad ka murugooto waa inaad go'aansan inaad dib ugu noqoto waa in waqtigeedii la marayo oo naftu halkan aanay iman waa in xaq bani aadam hadduu yahay inaad iska celiso shantaa sharti bay leedahay marka haddaad ku noqotayna ilaahay ha ka quusanine dee ilaahay usoo noqo toobadkeen qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahayna bushaaradaasi uuna siiye wuxuu yihi dadka naftooda ku xadgudbay ee caasiyiinta ahow naxariista ilaahay ha ka quusanina ilaahay dembigoo dhan buu dhaafaa sidaa ku dhabaa nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam ummadda fariintan Maxamed Saciid BK ma keligii ku socota inaad yaro dhageyso inaad yaro culumada duca mooyee deeq laga roo inay ku duceeyaan ma ahaane war deeqda laga roo kulli kuwaad isku xirateen lacag waa haysteen haday ku dhiibayaan Soomaalidan garan waxaana jirta currinimo ku baaqa hadana curriyada la yaaba markay ku daydaan cadkooda inaad yaro wuxuu hanti ka badani hadaad ilaahay dartii uga baxdayna noo sheeg oo wali sidaad uga baxday uga baxnow hadaad dhaqaaliya deeq uga baxdayna war haba ku soo noqonba yani mar ilan diinta kama marna diinta wax la gala ma lagana baxo iminkana diin kama bixin fankan dambi baad iska deysay war 7 jir ilaahay cadaabkiisa uu sii tafaxaydin ila maaragay waxa iska daa haday wadaadadani wax ku yeeleen waan ogahay qayb haday doonto ku dureysay oo ay ka xanaaqeen mansabkoodiina soo gashayna war noo sheego anaga meelku wadaada laga guurayo fanka loo guurayaa xaqa laga guurayo sharka loo guurayaa
janna laga guuraya janna laga guurayayo narta loo guuraya subxaan allah waciyaadu billah kii oo fanka dib u soo noqday laakiin fanka markuu ka baxay maxaa dhahay waxay muuqaalkan daawaday war dadku waxaad moodaa shadaadin bay ahaayeen sabab su-aasha ugu weyn ee mar walba la weydiiyaa waxay ku odhanayaan soo noqo fankii ku soo noqo alla meel weyn baad bannaysay wax khayrkii nagu dhiirigelinaya oo wax noogu yeedhay waxaasna maan arag ani goorma ku dareemo kasi inaan fanku soo noqonayo goorma marka adoo suud wato oo foodku jaran tahay fanka ka baxday aan bakaasha in meel dheer aad jiran oo wareeganayso soo noqonay أحمد بيف عمل ما ركته دا قميص تصبح قادله ما هو مشغول له متى كلامته هسه صباحي مقطع هسه كل هسه هذا انت فنك قلن كور انت كبيع فكر على دوق نو لكن السحب كو ما انت قصيده سونق نو قادي انا سوق البيع ربتيد او فنك توس سو قل ربتيد ما انت كو دريب لاك وعا كويدنا فنك ما كبيعيس waxaan dhaaday fanka sheedaamana dirdada soo noqay dhow ana ilaahay dirtiisa u baxay hadda waxa uu soo noqotay hadda ilaahay dirtiisa uu soo noqotay sheedaan dirtiisa uu soo noqotay waad uu soo noqotay shakhsal ilaahay dirtiisa ku baxayaan dhaaday hadda waxa uu soo celi agu soo celi waa laga rabaa ma jirto waa iska imaana waa iska baxa maan ilaahay kan kuwa wax sheega waa baxa waa soo noqonaa hadda wax kale oo sheega ma jirto wixii ku baxday oo ku soo noqso sheeg والله في سيمون مغالكا دو إنسو قارتي شرقرية بيت كان فلوس وضعها نكا وحو كبحي واوينو وانوس صبي وحو كسون غضي على رواء